dadka sigaarka caba waa uga nugul yihiin TB-da dadka caadiga inta ay qofka caadiga TB ku dhici karto si ka badan ayay ku dhacaysaa qofka sigaarka caba waayo sababka oo dhan maaragtay waa iska bukaada sababkii mar kasta waxa weeye inflammation uu qabaa mar kasta waa dhiban yahay dad cudur kasta ku dhacay qof TB qaba hadduu hal mar agtaada ku qufo markiiba dad sigaar cabto qaadaysa meesha uu qofka kale aan sigaarka cabin laga yaabo inuu adkaysto oo uusan weligii ku dhacay cilidka cudurrada ilkaha ah iyo sababka kansarka inaa boqolka oo kale u keeni kara waxaa looni aan ka hadalno waxaa ka mid ah shiisha waxay leedahay addiction yani barasho qofka maanta hadduu hal mar shiisha jiiro markiiba beri u baahan caawa u baahan ma deynka maanta haddaad jiiddo hal mar biraha arkaysa adoo raadsanaya lugaha ku socdo oo doonanaya middaa ah waa tubaako tubaakada waxaa jira calaamado badan oo ku noqon soo ma sigaar haddaad cabto waxaan raa idiin sheega laba qodob oo aan ku caddaynayno shiisha inaysan sigaar ahayn inaysan tubaako ahayn hadday tahayna waxyaaba kale ku jira tubaakadii maaha shiisha sigaarka maxaan ku noqona qofka hadduu sigaar cabo ma gaajoonay soo ma gaajo la-aana caan ku tahay shiisha haddaad cabto gaajad waalanaysa dad badan ay yidhahda shiisha waxaan cabayna si aan u gaajoonay cuntada lagu funo sigaarka cuntada waa xira taa waxay kusaysaa inaysan tubaako ahayn hadday tahayna waxyaaba kale ku jira daroogada marka drugska la isticmaalo markaan dib ugu noqono maxaa ka mid a kuwa fura cuntada fura oo gaajo badan keenaya maxaa ka mid waxaa ka mid ah cannabis baashaan dhaana xashiishka marijuana xashiishka marijuana waa isku mid waa un qeybo kala duwan oo geedka ka mid ah marijuana haddaa maqasho waa caleemaha ballaaran oo isla geedkii ah xashiishka waa caleemaha yarka oo kore iyo ubaxi iyo ubax yaryar ubax inuu geedka leeyahay oo la qalajiyey marijuana haddaa maqashaana waa caleemihii waaweynaa oo laga dhigay maaragtay si tubaakadii loo tumo marka marijuana haddaad cabto ama xashiish haddaad cabto gaajad ku waalanaysa shiisha haddaad cabto gaajad ku waalanaysa waxyaalaha shakiga keenay plus waagii hore rabaha iyo masaafka anigu waxaan aada u wareystay magaala harba markaan ku arkay dadka shiishla cabayay hadda waxaa laga joogaa hadda soddon sano ku dhawaad laga joogaa waa wareystay oo la sheekaystay waxyaaba ii sheegeen waxaa ka mid ahaa bahasha ay ku buuqayaan inay ahayd marijuana waa xashiishka iska geedka xashiishka ayay ku buuqayeen laakiin maadaama si qaab hidii dhaqan isaga cabeeyey dhalinyarada kuwa mashquulsaneen mana ahayn maaragta wax dadka dhan ku fidsan islaamaha waaweynaiska hataa ragga ma cabi jira marka marijuana maadaama taariikhdii hore oo shiishada lagu cabi jiray marijuana lagu cabi jiray maantana adano shiishada la cabayo maarata meelaha shiishada lagu cabayo dadka ay gaajoonayaan madiidasaan tuhun imaanaya inay weli marijuana ama tubaakada inay ku jirto marijuana marijuana waa xashiish tan laba qodobka labaad idin sheegaya aan ku caddaynayno inaysan shiishadu tubaako ahayn shiishada hadday tubaako tahay marka uu qofka shiisho u baato xaba sigaara markuu cabo soo ma ahayn inay xalaalo uga baato waayo sigaarka waa tubaako tani waa tubaako soo ma marka xaba sigaara cabto inay kaa bacdaa xaraaradii u qabtay iyo baahida u qabtay shiishada soo ma ha ka yaabo qof u baahan shiisho u baahan dad sigaar siiso xataa baarta sigaar dad cab maanta inuu cabo weli wuu u baahan yahay shiisho then hadii aysan tuhur imaanaya shiishada inaysan ahayn tuba sooma imaanaya wareysta dadka shiishada cab marka labadaas qodobba waxaan ku caddaynaynaa inaysan tubaako ahayn tubaakada way leedahay barasho shiishada barasho way leedahay taas labaduba drugs kamid kaama diidani laakiin labada arrinba waa idinku caddaynayaa inaysan shiishada tubaako ahayn ay tahay daroogo weyn oo aada uga culus tubaakada tubaakada waa daroogo laakiin shiishada waa ka weyn oo ka culus maadaama aada la kulantay dad professorro ama maaragtay dhakhaatiir badan ama dad maaragtay baashaan maaragtay aqoon dheer oo leh
maxaa hortaagan meesha ugu isticmaalaya kulley waa Kenya si aadaan ugu isticmaala suuqa maxaa hortaagan dawladdu inay macnaha intii la dhiraa macnaha dawladda hadda organizationka dawladda ka soo had shaqeyn nakada in ay rabaan inay baaraan maxaa hortaagan in baasha la qaado hal xabo kamid ah ama baaritaan ugu sameeyo maxay dawooyinka xitaa dawladda maartay ay soo maraan wasaaradda caafimaadka in la soo baaro waxaas hadaysan markaas aysan ahayn tubaakana markaas laga hortago oo la xaaraantinimeeyo ila xaaraantinimeeyo dawladda ay tiraahdo waan kasoo horjeednaa in maartay la isticmaalo at least dadku way baqi lahaayeen suuq madow baa lagu kala marka maxaa arrintaas hortaagan dawladda hadday raadinayso maxaa macnaha cilmi loo hayn baashan birtaan la qaado ogaadaha gudaheeda ku jira oo baaritaanayso horta waxay ii sheegeen nakada waa dhowto inay dawla socotay oo rabeen inay ogaadaan wax kooban tahay dacwadii aa qabatay ma garat dad badanaa sheegaya waxaan ka duwan tahay sigaar nakada marka waad garanaysaa waxaan waa balwad waa drugs dadaa soo gelinay waddanka iskama soo gelin si sharciga kuma soo galaan qaab aan sharci ahayn kusoo galeen iyadoo kale furfuro kala duwan inay soo gashay waddanka gudihiisa isugu keenay waxaan o dhan iyadoo tuwaaka inay soo gashay oo kadib wixii kale waddanka gudihiisa looga daray ma naqaan waadna garanaysaa drugska dadka drugs ka ganacsada dhaqaale fara badan helaya laaluush badan dhexeeya corruption badan sameynaya sababta waxaas weeyaan dabcan waxyaabaha ay weli maaragtay suuqa ku hayaan wiil waxaa jira ladka dariskayga ah soo iyo wiilal kale oo dhalinyaro jira marka baashaas isticmaalaan soo waxay dhahan baashan hadda isticmaashay usually qof experience ma noqonaysa si true mid labaad wadiina waxay tahay waxaa jiro arbada loo isticmaalo maadaama aday doctor tahay oo intaas dhagtahay ma jira arbada loo isticmaalo macnaha jaas qofkaas uu ku iloobi karo shakhsiga balwad markuu iska daynay process dhan weeyaan oo la marayo ko adiga go-aankaaga ma garad adiga go-aankaaga ayaa koow ah shakhsigaas balwadda joojinaya go-aankiisa ayaa koow ah horta inuu isagoo go-aan gaara marka uu go-aan gaaro kadib waxaa loo qaban karaa waxaa jira process dhan la marinayo ilaa uu joojiyo ilaa uu kusii socdo maaragtay balwad la-aanta laakiin shakhsiga go-aankiisa horta loo baahan oo dhab ah addiction ay leedahay shishada Soomaaliya so addiction kaneeto sidee looga bixi karaa qofka iska dhaafo karo shishada waxyaalaha laakiin hadda sigaarka kale dadka dhaaftay waxyaalaha jira process aberes Soomaaliya nicotine ma laha oo isku jiro oo sigaarka ku iloosinayso waxaa jiro qaab ay u soo wax salaan inay dib ugu laabanay shishada markaas kala sameynaysa maxaa process ka nooc cimri waxaa loo baahan yahay shakhsigaas drugs ka isticmaala go-aankiisa waa inuu isaga horta kasoo go-da qofka haddaysan kasoo dhamaanin uusan odhan intuu ku yimaado walaalo inay gacmo taa u baahantahay balwaddii way dhibtay way iga adag tahay haday gacan qabto hadduusan saa odhan qofka balwadda weligii ma joojina laakiin markay isaga kasoo dhamaato stagesaa jira la marayo soo ma yani pre-contemplation qofka intay balwadda la fiican tahay uusan weli xataa ku fakrayn inuu joojiyo contemplation waxaa waa stage ku xiga oo ah dhibaatadii ayaa taabatay dhibaatadii balwadda wuxuu ka fikirayaa waxaa bahashan ku dhintay si ma joojiya qaabkiin sameey ilaahay yaa iga joojiya action waa markuu uu ficilka qaaday go-aanu gaaray inuu qaado ficilka inuu joojiya maintenance yani inuu ku socdo balwaddii uusan ku dib ugu noqon balwad la-aanta inuu ku socdo intaasoo stage marka shaksiga hadduusan soo gaarin contemplation wax ma qaban karti pre-contemplation hadduu taagan yahay waa ula fiican tahay baasha means balwadda ama waa ku cusub yahay dhaqaalo weli haystaa weli waa la aaminsan yahay deen buu helayaa lama soo dhicin caafimaadkiisa weli waa fiican yahay weli xoog buu leeyahay soo ma arkin weli wuu qarin karaa dadkao dhan ma ogaanin lama nicin deen badan ma gelin weli marka wala dhibaato mu arkay waa la fiican waa bilowga hore mogta laakiin markay dhibaatada soo taabato oo soo karto muddo ay hayso shaksi wuxuu ku fikirayaa in dhib qabo ilaah yaa ka qabta then hadduu markaa ku yimaado gacan waad siin karta qaab loo joojiyaa jira tawakalaada soo xabisiin karta laga joojin karo سؤال مودي لكن رأيي أنا وين أقدر صدق bahashan way jiraan dhalinyaro aan aqaano oo isticmaala marka hadda iska badaa kan gudeeda weysle ka noqoto qofka wuxuu dhibsanaynba hadda halka iyadoo lagu cabeeyo aragti caadi ah kula tahay waxa lagu leeyahay waa ku naaxisa waxa lagu leeyahay stresska yareynay
marba qofka waxba iska leeyahay marka waxa dhihi lahaa bahashaas oo bahal wax fiican maaha waana drugs ka ugu xun waaye laakiin Soomaalida ma fahansana waxa ku leen tufaaxa ku jiro saan waaye marka waxaan aaminsanahay inay tahay wallahi in qaadka iyo sigaarka waa ka sii xuntaa udgoonka markii waxa ku jira waxyaabo lagu daro flavor weeyaan oo fragrance يعني قيقي waxa ka soo uraya tufaax udgoonka tufaaxa ayaa ka soo uraya qaar waa tufaax qaar waa waxyaabo qaar wax lagu sheegay soo kullu tufaax ma waa lagu cayilay waayo qofka gajoon inta badan u cunay inkastoo balwad aan aad loogu cayilay laakiin waqti markii ku cusub tahay qof waa cayilay markuu muddo sii wada laakiin waa sheegay shakhsi أنا قلت يس عبدت الشاشة مرة كودي عبسي محلا عنتظر وإسكرت تمام إنك عنتظر كم خدت واركتا لكن مركي الهوس كان عنتظر مركتو لا هو مرة قادنا دين وإسكر عكس لكن واحد بعد after 5 minutes وحيق ليه حارة شاشة دي مش ساعة عنتظر Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so